dalka Mareykanka waxaa ka socda doorashooyinka isreebreebka xisbiyada gudahooda ah oo loogu diyaar garoobaya dabcan doorashada weyn ee soo aadan bisha November ee sanadkan. meelaha doorashooyinkaasi ay ka dhacayaan waxaa ka mid ah gobolka Ohio oo Soomaali badan ay ku nooshahay, waxaana jiray Soomaali doonaysay in ay markaasi ama u tartamayba jagooyin kala duwan. qaar horey xilal u hayay ayaa xilalkoodii ku soo laabtay gobolkaasi, qaar cusubna haatan ayay ku soo biireen, qaarna umaanay suurto gelin in ay kalkan helaan jagooyinka ay u cararayeen. haddaba goor dhoweed ayaan qadka telefoonka kula xiriiray Xuseen Jaabiri oo isagu ka mid noqday markaasi dadka ku guulaystay ama ka soo baxay xisbiga jamhuuriga doorashadii xisbigaasi gudihiisa ka dhacday. waxa uu iga warramay si guud doorashadu sidee u dhacday iyo dabcan guulaha Soomaalidu ay gaareen. waa mahadsantahay. gobolka Ohio waxay ka mid tahay gobolka labaad Soomaalida ugu badan tahay. Minnesota Soomaalida number 1, halkana waa number 2. markii ugu horeysay Soomaaliya horta ay dad jamhuuri ay soo tartamaan laba qofood Soomaaliya xisbiga jamhuuriga ka soo tartamay, mid baa soo baxay, laba kalena waxay ka soo baxeen xisbiga dimuqraadiga. doorashadana waxay ahayd doorashada la primary isreebreebka, waa tartanka dhexmara xisbiga gudihiisa tartama. dadka soo baxa ayaa finalka aada ama doorashada general electionka oo la qabto November. marka ilaa iyo hadda tirada dadka Soomaalida ah ee ku soo baxay doorashooyinkan isreebreebka xisbiyada gudahooda ah ee gobolka Ohio intay gaarsiisan yihiin? inta soo baxday isreebreebka waa 3 qofood hadda, 2 oo dimuqraadiga iyo 1 jamhuuriga ah. laakiin waxyaabaha unique specialka kaga duwanaa doorashooyinka, 2 qofood oo jamhuuriga, 2 aniga aan ka soo baxay midna aan helin. qofka ugu horeeyay Soomaali oo Muslim oo jamhuuriga galo Mareykanka noqonayna. jagooyinka marka aan gobolka hore uga jirin ilaa iyo hadda oo dhanka Soomaalida ah ee doorashooyinkan ku soo baxay marka waa meeqa marka laga tago kuwii hore u sii joogay? kuwii hore u sii joogay waxaa hadda soo baxay 2 qofood oo kale oo guddiga Central Committee xisbiyada dhexdiisa iyo anagoo ma aragtay oo xildhibaanka ama state representative ah. 3 noqonayna, 3 baan isku nahay total. dadka Soomaalida ah ee markii hore tartamayay guud ahaan intay la eg yihiin tiradoodu? dadka tartamaya Soomaalida sanadkan waxay ahayn 7 qofood, 2 qofood oo guddiga dhex u tartamay iyo 5 qofood oo xildhibaano aqalka hoose u tartamay. waayahay, si guud marka gobolka sidee looga arkaa in Soomaalidii ay qaarkoodna soo baxeen qaarkoodna aanay soo bixin, kuwii hore u sii joogay ay soo laabteen, sidee u arkaan dadka Soomaalida ee gobolka? wallaahi tallaabo aad u weyn oo ma aragtay loogu faraxsan yahay, maxaa yeelay markii ugu horeysay Soomaalida ay intaasoo tiri helaan. doorashada ka horeysay nin Soomaali iyo golaha deegaanka isu soo sharxay ayaa 60,000 cod helay Jeyte Faarax. marka taas waxay xaqiijisay Soomaali inaan cod leenahay, nala ku xisaabtamo oo dad markii la gaaro xilliga doorashada tala la weydiisto oo maartay lagu talagalay noqdeen. marka wax weyn isbedel weyn ay maartay iyo talaabo weyn oo Soomaalida degan oo Columbus Ohio. Xuseen, adigu hadda waxaad ka soo baxday xisbiga ee jamhuuriga isreebreebka gudaha xisbiga doorashadii ka dhacday, marka kadib xaggee baad aadaysaa, maxaad u tartami doontaa? waxaan u tartamayaa aqalka hoose gobolka Ohio. waxaan la tartamaya qofka ka soo baxay xisbiga Republikaanka. 6 qofood ay ku tartamayeen, qof baa ka soo baxay gabar. labadaas qofood qofka ka soo baxay dimuqraadiga anagoo jamhuuriga ayaa waxaan aadaynaa doorashada guud oo dhacaysa November. 6 bilood oo soo socota ayaa doorashada la galaya olole maarta doorashada.